Hello, may maqashaa laba shan ka dhig sideed. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aad iyo aad baan idin salaamay saaxiibayaal dhammaantiin meel kasoo daafaha dunida ka joogtiin. YouTube-ka daawanaysa waxaa la dhaqan haddaad nagu cusub tahay subscribe, like iyo comment-iga wayna dhiirigeliyaan. haddaad nala joogtina waa maansan tahay. intaa marka laga yimaado waxaan kula wadaagi doonaa saaxiib dhowr shaqo ama dhowr shaqo abuur oo ka jiri jiray adduunka laakiin maanta dabar go'ay oo tirtirmay ama se meelo kooban laga sii isticmaalo inta badan adduunka la dhaafay. waxaan se kaloo kula wadaagi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo dhowr shaqo oo inagu soo aadan balse horraantooda aan arkayno hadda waxa kamid ah dhowrkaa shaqo ama dhowrkaa shaqo abuur ee ka jiri jiray caalamka balse maanta aan shaqaynin. kow waxa kamid ah taarka ama foomyaha wixii loo aqoon jiray ee ahaan jiray hebel alow may maqashaa laba shan ka dhig sideed ge lix ge toddoba may maqashaa araxmadow may maqashaa kaasi waa soo dhamaaday. taqriiban wuxuu soo shaqayn jiray sideetamaadkii sagaashamaadkii ilaa dhamaadkii sagaashamaadkii ayuu shaqayn jiray laakiin hawada wuu ka baxay waxaa riixay ama hawada ka saaray anteenadii telefoonka anteenada oo inta u badan dad badan shaqo abuur u noqday ama dad badan ay noloshooda ka maareyn jireen meelo kaabino oo dadku ku shaqaystaan oo qofkii u baahan inuu telefoon samaystana kaabinka uu tago oo ka soo hadlo ama meelaha loogu tala galay. laakiin hadda waxaan aaminsanahay meelo qaar waa ka jira laakiin inta u badan waa soo tirtirmay oo waa sii dabar go'aya lagamana yaabo qof hadda ku sii dhiirada oo yiraahdo shaqo abuur ayaan ka samaysani maxaa yeelay hawada ayuu ka sii baxay. waxa hawada ka saaray WhatsApp iyo Messenger ba hawada ka saaray. intaan WhatsApp-ka iyo Messenger-ka aan dhaafin waxa iyagana jiray waqtiyada 2000 ilaa 2010 waxa jiri jiray internet cafe meelo internetka loo doonto cafe-ga maxaa la yiraahdaa internetka qofku uu ka soo isticmaalo halka ayuu tagi jiray alaabtii waxay ahaan jirtay qarac laakiin hadda way dabar go'day oo lagama yaabo hadda in shaqo abuur laga raadiyo laakiin waqtiga ahaan shaqo abuur ayaa laga samaysan jiray nolosha reerkana waa laga maareyn jiray. dad badan ayay noloshooda ku tiirsanayd laakiin maanta lagama yaabo inuu qofku ku dhiirado inuu samaysto cafe internet oo shaqo abuur ka raadiyo. taasina hawada ay ka baxday. ka maxaa hawada ka saaray? ka waxa hawada ka saaray internetkan qof kastiba gacantiisa uu ku sito. waqtigan hadda aan joogno waxaan aaminsanahay meelo qaar marka laga yimaado inta ugu badan qof kastiba wuxuu sitaa internetkiisu gacanta ku sitaa. waxaan ku soo dhaafay telefoonkii loo tagi jiray kaabinka loo tagi jiray laga soo hadli jiray waxa ka soo daba baxay telefoonkii aan hadda dadka Soomaalida hadda u yaqaaniin dantaada ka hadal ka ayaa ka soo daba baxay kaasina meesha waa ka baxay. WhatsApp-kii Messenger-kii ayaa meesha ka saaray kadibna waxay noqotay kaafeeyadii internetka loo doonanayay iyagana in meesha laga saaray oo kani ka saaray oo qof kasta telefoonkiisa gacanta uu ku sito ama internetkiisa uu sito. waxaan ogsoonahay oo jiray laakiin meelo qaar hadda ka jira laakiin ay sii dabar go'aysa dadka daawadana ay aad u kooban yihiin. waxaa jiri jiray TV-yo aan naqaanay ama TV-ga aan wax walba ka sugi jirnay laakiin hadda waxaan aaminsanahay waxa kuwaan hawada ka saaray kana hadda adiga daawanaysid. TV-yada waxa hawada ka saaray kan hadda adiga daawanaysid ayaa hawada ka saaray oo waxa yimiday YouTube ayaa TV-yada in hawada ka saaray oo way sii socdaan. wasaan anigu aaminsanahay kuwaasi waa shaqooyinka hawada ka baxay qaarkoodna ay ka sii socdaan. waxa iman doona Je ne suis pas en mesure de faire cela. wariga amuste alama taqaana
waxaa kale oo iman doona shaqo abuuro badan ama shaqooyin inagu soo socda 5 sano ilaa 10 sano ee soo socda shaqooyin loo baahan doono dad badan oo ka shaqeeya petrolka ama gaariyadan petrolka loo isticmaalo ama maxaa la yiraahdaa dieselka loo isticmaalo adu gaariyadan petrolka ku shaqeeya ayaa meesha ka bixi doona waxaana iman doona ama haddaba riixaya gaariya ku shaqeeya electric ama koran ku shaqeeya waa sida hadalka loo dhigay kuwa ayaa riixaya laakiin hadda way riixayaan laakiin sanadada soo socda waxa laga yaabaa inay hawada lagala baxo oo petrolku uu meesha ka baxo waxa kale oo iman doona sanadada inagu soo socda in la raadiyo dad badan oo ku shaqeeya ama ka shaqeeya gaariyada xamuulka sababtuna waxay tahay dadku inta u badan maadaama ay internetka waxa ay ka dalbanayaan dadkii u kala alaabtan dadku internetka ay ka dalbanayaan gaariyadii badnaa ee xamuulka ee lagu shaqeynay ama lagu guray alaabta la dalbaday na waa loo baahan yahay oo waa shaqooyin badan oo inaga soo socda ay ka mid tahay waxa kale oo jira ama waxa kale oo inagu soo aadan in meesha ay ka baxdo dhakhtarradan ama jeexitaanka waxa la yiraahdo ama amaliyaadka qofka loo sameeyo jeexitaanka balse ay badan doonto duugitaanka waqtiyada inagu soo socda waxa meesha ka bixi doona 5 sano ilaa 10 sano ee inagu soo socda waxa meesha ka bixi doona jeexitaanka qofka la jeexo ama amaliyaadka qofka loo sameeyo taa oo bedelkeedu ay iman doonto duugitaan ama se isagoo laser lagu jeexo oo jeexitaankii midida lagu sii jiray ayaa meesha isna ka baxaya sidee doontaba ha ahaato saaxiib videogaygu maanta intaaba ku koobnaa daawashadaada waad ku maasan tahay haddaad nagu cusub tahay subscribe like iyo commentigu wayna dhiirigeliyaan haddaad nala joogtina waad maasan tahay intaan iskugu iman doono videogan xiga waxaanu kaaga tegaynaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh nabadgelyo